Horaantii 2008 ayaa la aasaasay Maxadka Tababarka Caafimaadka ee Gobolka Sool. 12 sano uu jiray maxadku waxa uu soo saaray xirfadlayaal caafimaad oo ku hubeysan aqoonta caafimaadka, kuwaasoo 70% ka dhex muuqda goobaha caafimaadka ee guud ahaan Gobolka Sool iyo gobollada kale ee ku xeeran gobolka. Maadaama ay sarreyso tayada aqooneed ee ardadii hore uga baxday iyo kuwa iminka wax ka bartay maxadku, waxaa lagama maarmaan noqotay in sanadkan 2020 loo bedelo Kollejka Caafimaadka Jaamacadda, taasoo lagu magacaabo Sool University ama Jaamacadda Sool, si ay u dhamaystirto Jaamacadda Sool University baahiyaha barashada caafimaadka. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa ka dhacday hoolka jaamacadda cusub ee Sool University oo lagu shaacinayay magaca cusub ee jaamacadda. Ardayga maanta muhiibadiisu marinta weeye, marka minhaajka la yimicnayaan mililaca, maskax fayowbaan cilmi ka macday maalaya, mira bislaadan sida mareerka muudsada. Kayga ina kamaro odayo imodayo ha u malaynin macallinkayga ina kamaro. Waxaana ka soo qayb galay maamulada wasaaradaha caafimaadka, waxbarashada, maamulka heer gobol iyo heer degmo, uqaal, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeyn waxaa hadalka madasha qaatay madaxweynaha jaamacadda iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid ah jaamacadda. bilowgeedii wuxuu ahaa 2008 waxaana bilaabay dad deegaanka gashay, waxaana u sababaha waxay waayeen wax xadura wax fadhaya nasiibdahan waqtiga waxaa aad u farbadnaa dhibka socday. waxay ku bilaabeen jeebkooda waxay ka helayeen iyo aqoontooda. qofka aan u mahadnaqin dadka wanaagga sameeyeyna allana u mahadnaqo. waxaan rabaa markaa dhammaanteen aynu allana u barino, una ducayno, una mahadnaqno dadkii ilaahay sababta uga dhigay halkan in aynu soo gaarno ama aynu bilaabaan. oo ay ka mid ahaayeen hadda waxaa ka mid la joogay maama Zamzam, waxaa la jooga kale Cabdiraxmaan oo naanaysta ma sheegay waxaan kuuska loo yaqaan aan filayaa. waxaa kaloo ana ka maqan Dr. Hussein, waxaa kaloo oo ka mid ah Niyada Quule, waxaa ka mid ah Niyada Dabayl, waxaa kaloo oo isagana ka mid ahaa gabadh qaaliya oo la jiray Aamina Xasan Burtin. bila laftiisu qayb ku ahaa salay sheegay. waxaan ku soo ururinayaa anu waxaan ugu iitireen xagga dambe ka soo fuulay dhowr sano tirsan 2 sano tirsan meelahaas, laakiin aan abaal ugu hayno una ducayno dadka wanaagga inuu horseeday. waxaana fiican ummaddu inay karaamayso dadkii wanaagga u galay. jaamacadda oo awalba magaceedii uu ahaa Sool College of Health Science oo magacii la develop gareeyay ama wax laga bedelay oo loo bixiyay jaamacadda Sool ama Sool University. daahfurkeedii baynu horta isugu nimi sida dadka badankiisu ay la socdaanba. markii ugu horeysay meeshan la bilaabay waa run macad bay ahayd, institute bay ahayd 3 sano ah. sanada ka bacdi markii adigu 5 sano 6 7 sano meelaha markay socotay 8 sano iyo 7 sano ma garanayo waxay ahayd, waxaan aragnay in baahi kale ay jirto oo ah ardadii halkan aan ka saarnay ee dibloomka ahayd inay rabaan meel ay bachelorka iyo degree-ga ay ku qaataan. intooda badanna ay dhibaato kala kulmeen ama se gobollo kale ay u aadi jireen. waxaan markaa isku daynay annagoo awood u leh inaan bixinno bachelor in ardadeennu aysan meel kale iyagoo gurigoodii jooga inay bachelorkiina ay helaan. sidaa daraaddeedba waxaan u guurnay institute-kii dibloomada bixin jiray college baan u bedelay, dhinacna ugama bixi karin. laakiin hadda waxa soo kordhay waxaa ka mid ah sidaad meesha ku aragtaan Sool University. Sool University haddii la yiraahdana waxaa ka dhalanaya in wax kasta iyo wixii jaamacaddu ay awood u leedahay inay bixisaba inay bixin karto. lama sheegan karayn, laakiin qolada kulleedka ee hadda u digurtay Sool University waxa weeye mudeen 80% 90% waxa hogaaminaya waxa weeye ardayda ka baxday kulleedka. taana ilaahay baan ugu mahad celinaynaa iyo baahidii taagnayd ilaa heer tuulo ilaa degmo ilaa tuulo maanta Sool meel la laga helayn
gabadh midwife ama nersina ama laaba degmada laga helin male. waxaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyay barbilowga jaamacadda cusub cuqaasha waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. kada furayno jaamacadda Sool University shalay ama waqti dhow waxay ahayd banaan waxa laga dhisay kulmeed maxad waxay ka dhisay college boardka taariikhda xusu doonto ee aaskeeda iyo fakarkeeda iyo cilmigeeda lahaa oo ay ka mid ahaayeen hablaha qaaliga ah oo u baahan iyaga iyo raggii aqoonyahanka ee ka qayb galayba in lagu dhiso gidaarada boorarka sawiradooda iyo taariikhdooda inoo aasaasay sidii hadda Dr. Bilo kale uu ka dhawaajinayay oo caafimaadka bahda caafimaadka oo dareemi karaya baahidii jirtay sida loo daboolay runtii ka deegan ahaana saasaan u dareeminaayo xitaa waxa ka faa'iiday Sool Institute ama Sool College waxa ka faa'iiday dadkii iyaga laftigooda xirfadlayaasha caafimaadka ahaa ee dhakhaatiirtii dibadda waxay nooga soo baratay oo markay yimaadeen isbitaallo barayfada inoo furay waxay heleen manpower ama dad xirfadlayaal ah oo loo sii diyaariyay marka inaan arko iskuulkii ugu horreysay annagana lagu bilaabay oo jaamacad isu bedelay oo wax ilaahay loogu mahadiyo intaana aanu gobolka joognay meelna aanan uga dhaqaaqin waxa ilaahay mahadiisa markii aan bilaabaynay 2008 bay ahayd baan u maraynay 12 sano laga qowlay 2021 waxaan rajeynayaa fakultiyada ugu horeeya inaan ka mid noqdo ee jaamacaddu ay qaadanayso oo ay lagu qabnay baahi aad iyo aad u weyn waxaan filayaa markuu college-ka ahaa iyo markuu macadka ahaaba ardayda inay ka dhex muuqan jireen gobolka runtii waa mid aad loogu farxo maanta hadduu Sool College uu isu bedelay oo u guuray u digarrogtay jaamacadda Sool University. ugu dambeyn waxaa madasha soo xiray duqa degmada Cabdicasiis Xuseen Maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Saleebaan Diiriye oo si isku mid ah ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay waxbarashada caafimaadku amaana u jeediyay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Sool University sida ay ugu soo halgameen inay soo saaraan xirfadlayaal caafimaad oo kaalin weyn ka qaata baahiyaha caafimaadka ee gobolka Sool. ka furan magaalada Laascaanood jaamacadda magaceedu yahay SU ama Sool University waxaan leeyahay hambalyo waadii hambalyeynana waa jaamacaddii shanaad ee laga furo magaalada Laascaanood ee sababka kuleeshkan jaamacadda isu bedelay loogu magac bixinayo iyadoo uu joogo madaxweynaha jaamacaddu iyo ku-xigeenkii Abshaar Darawal Samsam Taruush in Allah intii ka soo qayb qaadatay aad iyo aad bay mahadsan yihiin. عبد الفتاح محمد عبد التلفزيون كصاب لا سعنود.